munaasabad ballaadhan oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii aasaaska faraceeda magaalada Burco ee jaamacadda Addis iyo daafurka bandhig aqooneed loogu magac daray cilmi iyo tusaale ayaa lagu qabtay barxadda dawladda hoose ee magaalada Burco. munaasabadani ayaa waxay kulmisay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ka soo qayb galay maayirka xigeenka degmada Burco, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco, ganacsato dhalinyaro, aqoon-yahano, ardayda jaamacadda, abwaano iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horreyntiiba ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Addis faraceeda magaalada Burco Cali Cashuur Xasan iyo macallin Saabid oo adhiinka guud ee jaamacadda oo ku dheeraaday horumarka ballaadhan ay ku tallaabsatay muddadii 5 sano ay jaamacaddu jirtay. runtii maanta maalin weyn buu ahaa anigu waxaan jeclahay mar hore inaan bismillaah faatiha walaalkeeni Maxamed Saciid aadinte gudoomiyaha jaamacaddii hore aan faatiha aqoon jeclahay waayo sanad guuradii jaamacadda buu maybe I would like to speak English because to express my feeling in better way. Thank you for all participants of our today such kind very interesting occasions. وبرنامج قيمة له وحن عاوه هالكم جوجنا فرتانكا iyo xawayaan iba furka barnaamij qooneed iyo kulana qooneed ay jaamacadda Addis University soo kordhisay oo loogu talagalay in lagu wacyigeliyo lagu dhiirigeliyo aqoon-yahanka gobolka gaar ahaan dhalinyarada oo laga wacyi waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah horumarka bulshada ee ay ka mid yihiin tahriibka, mukhaadaraadka iyo wixii la mid ah. Ujeedada aan u soo kordhinay barnaamijkan waxa weeye in aan runtii ku dardargelino aqoon-yahanka kala duwan ee gobolka kaliya oo aan jaamacadda ahayn gobolka oo dhan hadday tahay ardayda jaamacadaha kala dhigta, ardayda dugsiyada sare dhigta iyo ardayda maxadada dhigta. runtii wax weeye sanad guuradii shanaad xuska sanad guuradii shanaad ee furitaanka jaamacadda Addis oo aan dareemayno in uu dhamaaday wareeg ka mid ah wareegyadeedii bartilmaameed ama qorshayaaleed ay ugu talagashay inay ku dhamaystirto himiladeeda. waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay oo ammaan ballaadhan dusha uga huwiyay jaamacadda Addis horumarka waxbarasho ay gaadhay madaxa suuqgeynta shirkadda Daabshil iyo mas'uul ka socday shirkadda Telesom. waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa una dhiirigelinaynaa haddana wasaaradda waxbarashada nahay arrintan muhiimka ee loo baahan yahay ee ay jaamacaddu ku tallaabsatay ee ah wacyigelinta dhalinyarada waxbaratay ay ummadda ka wacyigelinayso waxyaabihii la taabtay komidka ahaa mukhaadaraadka, tahriibka, qabyaaladda, kala qoqobka iyo wixii kale ee la mida. jaamacadda hawshan soo abaabushay heerkan maanta marinay aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa waana ku hambalyeeynaa. marka waxaan jeclahay maadaama ay jaamacaddaydii tahay macallin aan ka ahay in la sameeyo oo isku xidhnaan ardayda ka baxday iyo kuwa hadda ku jira iyo macallimiinta iyo jaamacadda iyo ardaydu dhammaan inay noqdaan ay samaystaan urur isku xidh u sameeyo. waxaan xasuustaa habeen ka mida 31 August sanadkii ku jirna ayaa ardaydii ugu horreeyay jaamacadda ka baxay baan kula yar isugu aad qalbigooda iska fadhiyo kuwa jahligii baa laga yaabaa inay ku dambeeyaan kuwa balwada iyo hadima dayac badan harsanayo in qofka digriga sita intuu yimaado isagii wax ka la dhinto waana mushkilad bay iska jirtay imiko xildhibaanada iyo waxaan ku dooranaa reer baa lagu doortaa marka qofkii khasab bay noqonaysaa inuu laakiin arrinta in laga xoroogaa muhiim ah. waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay xildhibaan Cabdirashiid Faarax, xildhibaan Cabdirasaaq Qaar iyo maayirka xigeenka degmada Burco Master Xoday oo soo afmeeray munaasabadani ayaa dhammaantoodba ka markhaati kacay muddadii gaabneed ay jaamacadda Addis ku tallaabsatay horumar la tiigsan karo. mid waxaan idinku wada daaramayaa cilmigiina aad barateen waxa uu yahay waxa la idinka sugayo iyo waxa ku qabanaysaan. cilmigu waa la sheegay ma aha waxbaro oo aamus ma aha waxbaro meel fadhiso waa waxbaro wax sheeg waa waxbaro wax faafi ma aha qofku inuu yiraahdo waxaan ahay degree master ama PhD meel u fadhisto waa inuu ummadiisa iyo bulshadiisa la dhex qaado sidoo macallinku sheegay isagoo ka soo bilaabaya $1 ilaa $1000 ma aha inaynu shaqadan qaadanayna $1000 baan doonaya ama $2000 baan doonaya ama meeqaan saran doonaya. anigu waxaan idinku la talinayaa runtii cilmigiina barateen han yeesha shaqana doona laakiin ummadina dib ugu celiya. Allah ta'ala waxaan rajaynayaa horumar waana waxaan kale u hambaleynayaa barnaamijkan in caawa fadhino oo ah barnaamij sida runtii in badan loo baahnaa. dalkeena waxaa jooga aqoon-yahano fara badan, waxaa jooga waayo arag fara badan, dad fara badan oo wax badan ina tari lahaa. waxa weydiin weyday
guryahoodii iska fadhiistay marka waynu u baahan nahay qof kasta oo aqoon-yahana oo wax bartay in ummadda lasoo hor fadhiisiyo oo ummaddu wax ka faa'iidaysato waa barnaamij sida runtii aan u baahan nahay dhiirigelin bay u tahay qofka aqoon-yahanka ee dalka jooga ugu horreyna waxaan u mahad celinaynaa maamulka iyo cid kastoo ka qayb qaadatay maamulka jaamacadda Addis iyo cid kastoo ka qayb qaadatay xafladan caawa aynu cilmi iyo tusaale uga dhignay halkudhiga aad iyo aad bay farxad weyn noogu tahay inaan ka soo qayb galno xafladaha noocan ah ee lagu dhiirigelinayo aqoonta iyo cilmiga gobolkan Togdheer gaar ahaan degmada Burco dabcan cilmi maanta macaashka ama qiimaha uu leeyahay cidna loo sheegi maayo waana dhiirigelinaynaa mar walba inaan kor u qaadno aqoontiina ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaa cid kastoo soo qaban qaabisay wax weyn bay runtii jaamacadaha gobolku waa la tartamaya dalku wuu tartamaya jaamacadda Addis waxaan leenahay waa hormoodka jaamacadaha gobolka Togdheer ugu dambeyntiina waxa shahaadooyin la guddoonsiiyay 6 qof oo kamid ah ardaydii hore uga qalin jabisay jaamacadda Addis iyo kuwa hadda dhigta doorka ballaaran ay ka ciyaareen horumarka degmada iyo shaqo abuurka gobolka Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Wanaag News magaalada Burco